ياسر فإن موعدكم الجنة. صبر أبو النبي يقول أتكيستا أبا الكينو إنك واجنة ويان هذي الجنة أي مغلان وحلي وحد دباتة الدنيا لسه درستون ويهالمامين يكو ويبقتا هوين إذا مدوئك حنون كي قبتئك ويدع عيسى صوحدين بيلا هاي لكن مركو النبي يقول هداد صبر لهي جنة إلهي كوكو بدل لها اسكدا بيكوتري بس هلكي سكو ضف. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم النبي ينوها عليه الصلاة والسلام أهل الصفيه مقالة المدينة قراني قرابة أن كلها إنين كمد أيوها مساجد كالنبي ينو مؤخرة دي سدا بأيو دقنا أهل الصفوه وحي هايين رق مال مردن أي أفكوغا أين انهلجر عنتا أي قليان أبا هريرة كمدها markay nabiga ag fadhiyaan baa la yiri hatta awradoodu sidaan u muuqan marada yareysitaan ee guntiga ee hoosta lagu xidho ayay labada lugood intay qabtaan ba isku xajinayeen baa la yiri iyagoo awradooda nabiga ka qarsanaya dhar la'aan cunto la'aanna nabiga u yeedhay maalin ahlu sufaha laba timiru nabigu siisiya laba timira maanta aad ma ku qadayn lahayd ay barwaaqan ku jirnaa inaku barwaaqo nicmad shukriga inagu yar maanta laba timiru nabigu u dhiibay ahlu sufiya waraba horeero labadan qabso war rabiico labadan qabso war fulaan oo labadan qabso aba horeero allah raali ka noqday wuxuu yiri xabadna waan cunay markiiba oo waan gaajoonayay xabadna halka guntiga ayaan ku duubto ku laabay buudi markaa uu nabigu igu yiri lima rafa'ta hadihi ya aba horeera xabadan timirta halkan aad gelinaysa maxay tahay cunde markaas uu hooyadii baan u geenayaa buu ka yiri markaa uu nabigu hooyadana annaka kuugu dhiibaynay iska cunbu ka yiri aba horeera waanka maanta xadiiskiisa markaad maqashaan aad ku raaxaysanaysaan xadiista aan inta badan aan sheegayno isaga wariyo inta badan laakiin uu sabray uu tabcay diinta tacab buu galiyay diinta uu gaajooday diinta uu huray wuxuu jeclaa inuu magaalada Madiina ka xogsado uu karayay laakiin wuxuu gartay jawaahirta nabi maxamed afkiisa ka soo baxayso umada u reebay ilaa qiyaamaha ربيعة مركا رقاسو كمدها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وحوير إساقا كشاكين يا هبينك مرقو نبيقو صوكع عليه الصلاة والسلام إلا أقلدو مركا الزمن قاسي أقلدو بحدو دا بسقلا لقو حاجودو يتواليد ملهين بنانك مقالة مدينة اللو بحجري مقالة مدينة بحالي بحولا بدن بيلهين مركا أبو يري ربيعة nabiga ayaan u soo qaadi jiray buu markaa cadaygiisa iyo biyaha weysadaan u sii diyaarin jiray buu habeenkii Madiinatul Munawwara marka dhulku uu yahay xilliyadana qabowgeega waa cadi ma qabowgeedu markaasaan u keenay nabiga biyihii weysadii iyo cadaygii dana xaajadiisii uu nabigu soo gutay inta nabiga aan la socdaa buu dhawaan way ilaalinayaan nabiga moogta sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu soo noqday buu arkay Rabiica oo aad u dhaxmoonaya oo gaajoonaya markaa buu nabigu ku yiri Rabiica salni maanta waxa doontay weydiisay buu caawa nabi maxamed ba hadal kaale ku salliya ya Rabiica salni ya Rabiica waxa doonta caawa sheego biyaale hadalka Muhammad alayhi salatu wassalaam wa nabi ducadiisu mustajaaba ay tahay والنبي أود ويا شيء جد إنه ويا جد بويا جد والنبي إلهي أوصي تأييدات هي معجزات ضميرك هذا الجسوم مغلى يا نبي محمد ضميرك والنبي إلهي أود وحوق لي هدور الله بورت إله والك كقاد إلهي بورها وكقاد لها مقالة مكة لي والنبي تبي ربيعو شجعه واحد دونس واسكن نقول إيك هذا النبي الله هل قابو فريسته نكن والنبي محمد كله يا باهي هذا عاوي إيش جوانين مقالة المدينة أقل كمله جاك كمله قرابة كمله قرين كمله ماله وحكعنا ما هيستو هدية النبي الله كنا
ayuu nebigu ahlu sufahna wax ka siiyaa maalmo dhan baa soo wareega 3 maalmood 4 maalmood 7 maalmood calooshooda cuntay geliyaan ma helaan xabad timira hadday helaan bay iyo abaal ku qabaan ninka baahida ay hayso ayaa nabi maxamed fursad intuu siiyay uu ku leeyahay yaa rabiica waxa doonto caawa sheego salni ii sheega caawa waxa doonaysa markaasuu u yimid oo wuxuu yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna yaa rasuul allah wax kale oon sheeganayaa ma jirtee inaan jannada kula noqdo rafiiq ilaahay intaa ii weydii buu ka yidhi meel baa u caddayd iyaka inaan jannada kula noqdo rafiiq bas kugu arko kula saaxiibo kula fadhiisto kula jaar noqdo ku arko intaa ilaahay ii weydii say nebiga u jeclaayeen cajiib indhahoogay ka jeclaayeen ubadkoogay ka jeclaayeen naftooday ka jeclaayeen waa kii nebigu cumar ku lahaa markuu cumar nebiga ku yidhi yaa rasuul allah dadkayga iyo dadka oo dhan iyo waxa adduunka yaallo oo dhan adaan kaa jecelahay naftayda mooyaane markaa buu nebigu yidhi cumarow weli weeyaan waa weli ilaa aad naftaada iga jeclaato weli iimaanku qalbigaaga ma fadhiisan ma naftaydana haa naftaadana cumarow ku dar wallaahi nebi allow naftaydana waan kaa jecelahay al'aana yaa cumar buu nebigu yidhi haddaa iimaanku qalbiga ku galay buu rasuulku ku yidhi hadduu gaadho iimaankaagu halkii la doonayey nebigay jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ka fikirayaa adduunyada maaha waa aakhiro yaa rasuulallah jannada rafiiqan kula noqdo bas markaa buu nebigu mar labaad buu u qabasheeyey wuxuu ku yidhi aw hayra daalika taatu aan ahayn oo kalena sheego haddana markaa buu yidhi huwa daaka muraad kale anu ma lihiye muraadkaygu waaba intaasuu yidhi markaa buu nebigu ku yidhi faacinnii calaa nafsika bikahrati الsujuud waa hagaag rabiicow adiguna waxaad igu soo caawisaa sujuudda soo badsa buu nebigu ka yidhi nebigaa janno ii bishaareeyey ha ku gaabin cibaadadii ilaahay bal soo ziyaadi cibaadada daacadda ziyaadi salaada ziyaadi khayrka ziyaadi u dhowaanshaha ilaahay aad u dhowaanayso sii ziyaadi anigana miyaa taa aad ii weydiisatay waad ku dadaalayaa inaad iga heli doontee adiguna sujuudda igu soo caawi buu nebigu ka yidhi ayaku jannaday fahmayeen jannadu waa daar nuuceeya waa daar ilaahay baa dhisay tabaaraka wa tacaala dhagaxda laga dhisay buu nebigu sifeeyo wuxuu yidhi labinatun min dahabin wa labinatun min fida labadan dhagaxee jannada laysduldhigee laga dhisay midna dahab buu ka samaysan yahay buu nebigu yidhi midna lacag buu ka samaysan yahay ahlaljannuhu jannada dhexdeeda buu nebigu yidhi way cunayaan way cabbayaan wakhtigay cunayaan xad ma leh wakhtigay cabbayaanna xad ma leh way cunayaan way cabbayaan ma saxaroonayaan kaadi yeelan maayaan qandhuuf iyo siin iyo khaakhata midna yeelan maayaan buu nebigu yidhi cuntada maanta adduunyada ugu macaan haddaad cunto saacada kadib halkeed geynaysaa baytalmaygaad geyn aqalka adduunyada ugu qurux badan bilaa baytalmay ma dhici karaa inuu noqdo waliba aqalku ka sii qurux badan yahay ee si casriya loo dhiso ayaa tuwaaleedkiisana si casriya loo dhisaa iminka carabtuna tuwaaleedka waxayba u taqaanaaba bayturaaxa aqalka raaxaday u yaqaanaanba baad cuni waa inay ku dhaaftaa cunnada adduunyadu laakiin jannada dhexdeedu waa cajiib cuntada jannada buu nebigu yidhi waa la cuni waa la cabbi laa yataqawaduun walaa yamtakhituun walaa yabuuluun walaa yadfuluun baa nebigu yidhi cuntada jannada waa la cunayaa waa la cabbayaa sharaabkeega maaha saacado waxa la cunayo boqolaal sano kumayaal sanaa la cuni doonaa cunnadaa la cunaya buu nebigu leeyahay saxaro noqoni mayso kaadi noqoni mayso duuf iyo siin iyo qandhuuf iyo kaakhatana noqoni mayso oo haddaa maxay noqonaysaa cunnadii waxay noqonaysaa buu nebigu yidhi wuu daacayaa qofku daacada adduunka markaad daacdo islaantaada dhan baa ku odhanaysaa war daacadaada qarmuunkeega xaggaa noogala jeeso soo ma odhan karto war maantii maxaad soo cuntay waxbaa kaa uraya xagga uka yaa allah
daacada jannada buu nabigu yidhi waa miski udgoon la ursado cadarka ugu udgoon ee jannada dhex yaalla ayaa calooshiisa ka soo baxaysa qofka muuminka biyihii iyo sharaabkuu cabbayey mee ilaa jannada waxaa la sheegay webiyaal dhan inay durdurayaan webi caanaa webi malaba webi khamriya webi biyo ah intaabaa hoostaada maraya markaasaad cabbaysaa haddaad maanta cabtid markaaba baytalmeyga ayaad u baahan oo kaadi baad ku qabanaysa habeenkiina 2-3 jeer buu qofku kacayaa xilligu dhulku qabow yahay ahlaljannaha miyaa may kaadi yeelan maayaan buu rasuulku yidhi oo sharaabkii cabbeen muxuu isku bedelayaa waxau noqonayaa buu nebigu dhidid buu noqonayaa dhidid cunadiina daacay noqotay udgoon sharaabkiina wuxuu noqonayaa dhidid buu noqonayaa dhididka adduunka waa qarmuuna waa la iska maydhaa dharka aad ku dhididayna waad iska bedeli laakiin jannada dhexdeeda dharkana la bedeli maayo wajigana la maydhi maayo ahluljannati juradun murad kuxla laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum baa nebigu yidhi ahluljannati juradun murad ahluljannuhu gadh yeelan maayaan timo dhogorana yeelan maayaan xaggan walaa meel kale timo badanna yeelani maayaan gadhna yeelan maayaan buu nebigu yidhi kaxlaa indhahoogana waxaad mooddaa indha kuxulin loo mariyaad mooddaa bal wayba ku samaysan tahayba laa yafnaa shabaabuhum dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 33 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 33 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa hiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyooba buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuqa aljumuca la yidhaah suuqaabay ahlaljannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubbu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay beddilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way beddilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii maaha wejigoogu kalarkii maaha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogiiyo xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen nagu soo noqoteen dharkiinni waa isbedelay kalarkiinni waa isa soo bedelay wayni sidee markaaba iyakuuna odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waa layni sii bedelay ininkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi asamaa wa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmey geli maysid ma seexanaysid daraariya habeen waad iska ciyaariyo tuman in sha allah dhahada qulu in sha allah haweenka jannada nabigeennaa ka sheekeeyey calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey buu rasuulku yidhi mid ka mida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yidhi gabadha muuminadda ee jannada galaysee muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cedcedda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xawralcaynta ka mid a faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nooloo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yare madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxaa dulyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi mu'minku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye
xuuralcaynta dhuunteedu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeeguu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayey ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaa nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annaguna xaas u noqonnaa liibaanay bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabbihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo waatan aayadda qur-aanka ilaahay ku sheegay wa ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysato maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato ibtilaa baa laguu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay taacaddiisa ku seejiyaan iyo inaad taacadda ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yaroo fudud la xisaabiyo markaabuu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannaday joogaanay ku sugayaan baa la yidhi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu huwiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaamo buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxau ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiiyow dembigii caynkaas iyo caynkaa iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halkaa aad ku samaysay ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay haa markaabuu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedina waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xaggaayo jannadu u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas mahdaan dembi lahayn muu inagu jiraa may macsuumiin ma nihin dembi uu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabka la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaabuu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi 70 sannadood mise sano caruuska habeenka ugu horreysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 daqiiqo saa ma u eegi kartaa waar maxaad naga eegi bay ku odhan indhahay faraa kaa gelin maxaa nahay ya yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda 20 daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkayga ibnu cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasaa xuurlacaynta daawashadeeda ku raaxaysan doona waqul lilmuuminiina yaquduu min absaarihim udaymoon saasuu u daymoon muuminku 70 sannadood tucaaniquhu wa yucaaniquha ku boodi marka iyadna way ku soo boodi mucaanaqada waa qoraqoraynta mucaanaqadoo keliya buu yidhi ibnu cabbaas haddana 70 sano kale haddana haysan buu yidhi sidaa unu haysan markuu jannadii arka naciimteedii 4 shay
oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlal jannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan leeg ayaa ilaahayna siiyey markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahla aljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahla aljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu baaqayaa maalin walba oo lagu leeyahay salaadda markaad tukanayso ee mu'adinku uu ku leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax jannadaa ishorkeen jannadaa ku xisaabtan bishii rabadaan baa soo gashay jannadaa ishorkeen sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannadaa ishorkeen qur-aan baa lagu leeyahay kaale akhri jannadaa ishorkeen aakhiro wax u bixi baa lagu leeyahay jannadaa ishorkeen markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisii isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nebigay ku yidhaahdeen nebi allow magaalada maka annaku aan ka imannayn ka soo baxnay maa uu zamzam baan ku haysanno ii maahayn halkan biyuhu waa ii magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysanno markaa ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabataydi muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayoo biyahaa yar baan iibiyayoo reerkayga ayaan ku biiliyaa markaa buu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bedilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo ishiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni iljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuhmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa